السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتيدا شرفت لي ku xiran janalka waa in salaamay. Maanta waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo muuqaal ku saabsan Kampala guryaha meeqa lagu kireeyaa. Waxa laga yaabaa akhyaar badan inay u baahan yihiin xog ku saabsan guryaha inta lagu kireeyo oo rabaan inay yimaadaan wadanka Uganda. Marka halkan aan joogo waa guri qol iyo fadhi ah. Waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo qiimihiisa. Sidoo kale waxaan rabaa inaan idin tuso gudihiisa. muuqaalkan ayaan ku tusi doonaa. Meeshan hadda aan joogo waxa la dhahaa Awino Market. Wuxuu u dhow yahay xaafadda Kisenya ee Soomaalida ay degan yihiin. Wadankan Soomaalida waxay leeyihiin hal xaafad ay u badan yihiin ee ku nool yihiin badankooda. Marka akhyaaray xaafadaas iyo dhiyo suuqan waa suuqa Kampala ugu weyn sida halkan uga jeedaan. marka akhyaarta sharafta waxa idin leeyahay suuqan waa suuqa idin sheegay waa suuq Awino Market aan lahaa Kampala ku yaala xaafadda Kisenya aad iyo aad ugu dhow yahay. hadda muuqaalkan yani hadii kaamirada qaybtaas dambe la aado yani waa xaafadda Kisenya aad iyo aad ugu dhow yahay. marka saaxiib halkan waa suuqi sida u jeedaan oo kaas qaybta sare ee isku raranta ah dhinaca midig markii la aado waxa way xaafadii Kisenya ee Soomaalida ay degaan. marka saaxiib yaal wadankan yani meeshan ma ahan meel aad iyo aad u wanaagsan ma ahan. wadankan badankiisa sidaan ay buuro iyo wuxuu iska yahay wadan yani saano kale iska oo yani mootooyinkan asoo dhan ba sida iska ama fahanteen. marka akhyaarta waxa laga yaabaa badanka inay la yaabaan wadanka sidoo ogaa meel badan oo qurux badan waa leeyahay meel badan oo sidaan oo iska jaam oo dhib badan waa leeyahay laakiin wax walba waxa yani amnigiisana yani waa yani Soomaali dhibaato lagu geystaa laakiin ma badna. marka akhyaarta waxaan rabaa inaan idin tuso guriga horta qiimihiisa inaan idin sheego. qiimihiisa waxa waaye gurigan hadda aan joogo dabaqan hadda aan muuqaal ka duubayo waxa waaye 100 yani 800 oo kun oo Uganda money ah. lacagtaas waxa u dhigantaa $210